Soomaalinimo waa wax lagu faano. Bariisan hilib. Waayo hadda baryahan waxaa caalamka oo dhan cirka ku jira oo viral ah oo dadkii oo dhan ay jeclaadeen waa cuntada Soomaalida. We are going to try Somali food for the first time. Ayagoo waliba ku sheegayo Soomaalida ama ha noqoto Canada ama London ama ha noqoto wadamada caalamka even Dubai Carabaha. I found another hidden gem in Dubai, Somali restaurant. I'm here to present this food culture to you guys. Waxa waayahan aad loo jecel yahay oo aad loo xiiseeyo waa cunto Soomaalida, waa bariiskeena, waa baastadeeni, waa cuntadii Soomaaliyeed, waa timirkeygii, waa sambuuskii, wax walbo ay tahay. Waxaan ku yiraahdaa video after video ayaana ma aragtay runtii ka soo baxayo. Haddaba ma aha wax iska yimid balse waxaa la arkay in Soomaalida cuntadeeda ay macaan tahay oo ay waliba fursado u helayaan dad caan ah oo TikTok iyo social media Instagram ka noqoto maxaan ku yiraahdaa TikTok, Facebook, YouTube meel walba gashidba waxa laga hadlayaa cuntooyinkii. Waxa yaaba hadda waxaan joogaa London sidaan u imaaday maqaayad walba oo Soomaali oo galo waxaan arkayaa dad ajaanib ah oo fadhido. Hadda waagii hore markaan London joogi jirno kuma arki jirin. Hadda cadaan Arab maxaan ku yiraahdaa madowgii dadkaan ajnabiga ah idil maqaayadii Soomaalida ay saf ku jiraan. Waa arin runtii lagu farxo. Mana dhahayaan videoda markaad aragto maaha cuntada reehebel cuntada mar walba waxa ka hadlayaan waa cunto Soomaali. Taas wallahi waxay iseenaysaa inaan aad ugu farxo in ay noqdaan Soomaalidii dad aanan mar walba ku tashanaynin suuqa Soomaalida oo ay wax walba international ay ka dhigayaan. Taas ayaa ah mid lagu amaano Soomaalida meel walba joogtaba. Runtii arintaas aan ku faraxsanahay. Adiga sidaad u aragtaa cuntada Soomaaliyeed ma tahay mid dhadhan wanaagsan maqaayadeedna ugu jeceshahay? Runtii aniga maqaayado badan baan soo maray hadda oo aan soo arkay London intaan joogay, Dubai ha noqoto sida Caramel oo kale, Sabiib oo kale, Nairobi, Crash Jet iyo goobaha kale oo kale. balse runtii waxaan aad ugu farxay markaan arko Soomaali cuntadoodii baraha bulshada intii la soo dhigo la amaanayo erayga Soomaalinimada qiime igu leedahay runtii xaggayga aniga runtii